markale waxaan jeclahay bal Mareykanka inaan ku yara laabano iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo maalmahan warbaahinta caalamku ay aad u hadal hayso talaabooyinkiisana halkii ka sii wado si gaar madaxweynaha wadanka Mareykanka waxa ay mudooyinkan isu hayaan baraha bulshada gaar ahaan baraha mataanaha ee Facebook iyo Twitter iyo Facebook waxa ay go'aansadeen wax kasta oo lidi ku ah talaabooyinka ama marin habaabin xanuunka COVID-19 oo soo dhigay Donald Trump in ay saaraan bilihii la soo dhaafayna way isku imtixaanayeen oo hawli halkaas ayay uga wada socotay markii u dambeysay waxa jirtay qoraal uu soo dhigay oo la xiriiray xanuunka COVID-19 caruurta yaryar inuu san karin kaasi oo ay saareen sidoo kale qoraalo la xiriira dhinaca campaignkiisa ayaa jiray oo iyagana ay ka saareen iyo waliba markii George Floyd la dilay ee ay dibadbaxyadu gudaha wadanka Mareykanka ka socdeen markaasna qoraal uu soo dhigay waa ay saareen hadda isagoo isbitaal ka soo baxay maalmana u xanuunsanaa xanuunka COVID-19 xitaa naqasku intuu ku dhagay neef caawiye la siiyay oo lagu xiray mashiinta neefta caawisa ayaa haddana wali waxa uu sii wadaa fariimooyinka ama fariimaha la xiriira xanuunka COVID-19 ee ay ku tilmaantay barta Facebook iyo qaar ka mid ah saynisyahanada dhinaca caafimaadku marin habaabin bal sheeko kooban oo labada Facebook iyo dhaxmartay Donald Trump aynu dulmar Facebook ayaa waxa ay tirtay fariin madaxweyne Donald Trump oo ku sheegay COVID-19 uu ka halis yar yahay hargabka Mr. Trump ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay aqalka cad kadib markii 3 maalmood uu ku jiray isbitaal looga daweynayay viruska corona oo laga helay waxa uu fariintiisa uu ku qoray madaxweynaha wadanka Mareykanku in uu bartay sida loola noolaan karo xilliga hargabka sida aan baranay in ay dad badan la noolaadaan COVID-19 maadaama ay halistiisu yar tahay cajiib Twitterka ayaa sida oo kale fariintaasi lafteeda qoray iyada oo ay sheegay in ay fariintaasi marin habaabinayso bulshada fariin khaldan ay u gudbinayso waxaana tiray fariin khaldan oo ku saabsan khatarta uu leeyahay COVID-19 hadda ayaanan fariintaasi tirnay ayuu yiri Andy Stoney oo ah maareeyaha isgaarsiinta Facebook tirada rasmiga ah ee xaddiga dhimashada ee COVID-19 lagama oga balse waxaa loo malaynayaa in ay aad uga sareyso noocyada hargabka suurtagalna ay tahay 10 jeer ama ka badan in ay ka badan tahay sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins khatarta dhinaca xanuunka COVID-19 marka la fiiriyo Facebook ayaa waxa ay sheegtay madaxweynaha in uu ku xadgudbay sharciga u yaala baraha bulshada ee ah in aan la soo dhigin fariimo khaldan baraha noloshadana khatar ku ah bulshadana marin habaabinaya iyagoo sidoo kale sheegay in ay tahay mid mas'uuliyadda uu madaxweynaha wadanka Mareykanku shacabkiisa u haya iyo bulshada caalamkuba ay fiirinayaan maadaama nin mas'uul ay dhibaato tahay balse shirkadu waxa uu sharcigu u fasaxayaa in ay faraha la gasho ayna tirto ama ay xayirto fariimaha ay u aragto in ay xambaarsan yihiin aflagaado xadgudub ama colaad oo kaleeto sharcigaasi hadii lagu xadgudbana baraha bulshada waxa ay wajihi doonaan dacwada la xiriira in ay wax ka bedelaan ama isbedelka ay ku sameeyaan waxa uu qofka isticmaalo baraha bulshada uu soo dhigay waa markii labaad oo madaxweyne oo ay Facebook tirto fariin uu madaxweynaha wadanka Mareykanka soo dhigay Twitter ayaase marar badan sameysay in ay tirto ama ay digniin u dirto madaxweynaha wadanka Mareykanka fariin uu bartiisa soo dhigay ama dad isaga taageerayo oo ku magaci ay soo dhigeen labadaasi shabakadood ee baraha bulshada ugu waaweyn ayaa wacd waxa ay ku mareen in ay la dagaalami doonaan fariimaha khaldan ee halista ku ah viruska corona balse Mr. Trump oo arintan ka hadlaya ayaa isagu arintan waxa uu arkaa shirkadda in ay tafaftirtay fariintiisa ay tahay mid khaldan bishii May ayay ahayd markii ugu horeysay oo ay Twitter fariin digniin u dhigtay barta madaxweynaha uu ku leeyahay taasi oo sababtay in uu madaxweyne Donald Trump amar sare loogu qaadayo dhinaca xadidaada uu bixiyo
oo uu ku sheegay in faqradda 230aad ee sharciga arrimaha shirkadda u fasaxayo in wax laga bedelo arrimahaasi. amarka madaxweynaha waxaa soo dhoweeyey dhinacyo badan oo sababo kala duwan arrintan u xiiseynay. amarkan madaxweynaha ayaa amray in la sii qeexayo sharciga isgaarsiinta oo ah sharci ka jira Mareykanka kaasi oo xaaladaha qaar difaacaya shirkadaha online-ka sida Facebook, Twitter iyo shirkadda YouTube. faqradda 230aad ee sharcigan ayaa shirkadaha baraha bulshada waxa ay siinaysaa mas-uuliyadda qoraalada ay soo dhigaan dadka barahooda isticmaala, balse waxa ay hawada ka saari karaan qoraalada aflagaadada iyo weliba anshaxumada ku saabsan. xeer ilaaliyaha guud ee wadanka Mareykanka William Barr ayaa waxa uu sida uu isagana sheegay in uu bilaabi doono isku dubaridka amarkan cusub si ay aqalka Koongareeska ugu codeeyaan arrintaas iyada, isagoo sheegay inuu si shakhsiyada arrintaasi isooga xilsaari doono. hadalka madaxweynaha wadanka Mareykanka ee la xiriira xanuunka COVID-19 iyo qoraalada isaga iyo baraha bulshada ee isku maandhaafeen waa Facebook iyo Twitter ayaa loo arkaa mid khatar ku ah, iyada oo hadallo kala duwan marar kala duwan uu soo dhigay. hadalkan ayay dad badan isweydiinayaan kadib markii uu Donald Trump xanuunkani ku dhacay, weliba lagu daweeyay dawooyin tijaabo ku jiro xitaa khatartooda leh oo uu dalbaday in lagu daweeyo. haddana uu dawooyinkiina ammaanayo, xanuunkana ku tilmaamay hargabka inuu ka khatar yar yahay uuna yahay wax iska fudud oo aan micno badan lahayn. sidoo kaleeto muddada xanuunkani uu ku dhacay iyo sidoo kaleeto isbitaalka inta ugu jiray markii la fiiriyo ayay dadku isweydiinayaan khalad kaleeto in ay tahay inuu Donald Trump ka soo baxo isbitaalka isagoo oon qaadanin muddadii sharciga ahayd ee hay'adaha caafimaadka iyo saynis yahanadu u dejiyeen xanuunka COVID-19 oo ahayd 2 isbuuc iyo inta kaleeto oo hay'adaha ay ku xaqiijiyaan qofkan inuu xanuunkan kaga soo kabsaday. laakiin wali waxaad moodaa dagaalka baraha u dhaxeeya iyo isaga in ay sii socdaan. Cabdi Axmed ma horta haddii aan soo koobo waxaan xasuustaa hadalkii hadda ka hor ku hadashay Hillary Clinton markii ay maaragtay ololihii doorashada markii ay socdeen intuusan madaxweyne noqonin ayaa waxay tiri ninkan gariiraayo markii wax yar laga sheego oo barta Twitter-ka saa ugu gariiraayo goorma lagu aamini doonaa maaragtay sirta nuclear-ka dalkani soo cagarta ma yani waxa laga yaabaa inuu soo tooso oo wadan hilfa maaragtay hilfaha uu qaado. laakiin sidoo kale waxaad moodaa Donald Trump hadda ka hor baa wuxuu yiri Joe Biden hadduu iga guuleysto dib dambe la ima maqli doono ma i arag, yani waxa weeye I'll shut up and warninkan ciribtiisi xagee martay Donald Trump xagee ku dambeeyay. marka waxaan u maleynayaa wuxuu isleeyahay tolo in badanaa lagu soo xasuusan doonaa bal maaragtay wax walba qas iyo lab ka dhig. waayahay halkaasaynu kaga gudbaynaa sheekadaasi la xiriirtay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo weliba baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter iyo waxa kala haysta iyo fariintaasi u dambeysay ee ay ka saareen baraha bulshada.